بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الذي كهبونا ماشى إن بدنا كمدا ولا يري وحاربا إلى الحوجي أو كلية إن ما أنت أي تهاي تاريخ عصب يبقى عصب أو تاريخات أو صوماليا أو باللوذي وحين مضنتها ما أنت إن أن آد إلهي أقوم مهد علنه نسوق جارسية ماشان إسلام مركانا إلهي أن كبر إنه أنت دمنا سن بطأ إيوناك إنه نقول ماتو أنا كهذا لايو مجا ومد الصوماليات ملكستو أي جوكتبا وحان ربا إن أم مهد عليه شعبيجا إيه دولة تركيا إيه هجان كذا مدنه رجب طيب أردوغان أو رنتي markasta oo aad istiraadid Soomaaliya ama laga sii jeesto adduunyadu ay ka jeesatayba adduunyada dib ugu soo jeediyo Soomaaliya waa wada xasuusanaa sanadkii 2010 waqti rajaxumadu ay aad u ballaarneed boqolaal kun oo Soomaali ay gaajo u dhimatay qaar kalena ay qatar ugu jireen oo Soomaaliyana waa meel dhib badan oo lama tagi karo lama aadi karo la leeyahay oo xataa shaqaalaha hoose ee NGO-yada ka shaqeeya aan loo ogolayn in ay Soomaaliya yimaadaan ayay ahayd markii ra'iisul wasaare Erdogan ee waqtigaas isaga iyo qoyskiisii iyo golihiisii wasiirada iyo dawladii Turkiga oo dhan inay xamar ka soo degeen oo ay yimaadeen waqtigaasi gargaar bini aadamnimo ayay ahayday baahida ugu daran ee Soomaalidu ay qabtay oo ay rabtay in laga kaalmeeyo Turkiyana waa keentay gargaarkii ugu badnaay oo ugu nidaamsanay berigaas oo lagu badbaadiyay kumanaan kun oo Soomaali ah noloshooda waxa kale oo ay keentay sidaan u sheegayay in caalamka uu dib u soo eego uu yiraahdo war meesha waa la tagi karaa war meesha sida loo sheegayo ma aha war dadku maxaan ku raadaay wax qabad u baa caalamku inuu yiraahdo dib Soomaaliya loo soo eego looguna soo noqdo ayay sababtay alxamdulillah wax badana maalintaas iyo maanta inta ka dhaxaysay soo kordhay horumar badanaas la gaaray maxaan ku raadaay mar walbana noloshu taxadiyaadka iyo challengesku way jiraan laakiin dadka Soomaalida runtii maalintaas laga soo bilaabo iyo ka horba way soo kabanay way soo socdeen meel aad iyo aad u fiican ay maantana taagiin maanta marka heer kale oo dadka Soomaaliyeed ay istaageen cadawgii argagixisada ilaa xad ay meel saareen intii kalena ay u taagan yihiin oo ay la yimaadeen rabitaan iyo quwad in ay cadawga argagixisada meel iska saari karaan ay la yimaadeen oo ay ku qanciyeen caalamkiina inuu arko maanta marka waxa la joogaa waqtigii haddana dadka Soomaaliyeed dhaqaale ahaan iyo awood ahaan loo soo dhisi lahaa ayada oo maanta Soomaaliya haddana la leeyahay ma la tagi karaa ma la maal geli karaa ma waxaan ku raadaay ma la waxay karaa ayaa haddana walaalaheen dawladda iyo shacabka Turkiga iyo madaxweyne Erdogan ay haddana go'aan kale oo taariikhi ay gaareen oo Soomaaliya iyo Turkiga ay wada galeen heshiiska iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha heshiiskaas qayb kamida waaye maanta waxaan u taaganahay markabkan casriga gadaasheena taagan u taagan yahay maanta waa maalin kale oo adduunyadu ay haddana tiraado war heedahay Soomaaliya waa la maal gasho karaa war meesha waa wanaaga ka jira war waa dhaqaalaha ka jira war fursada ka jirta la yiraahdo haddana laana markabkan inuu meesha soo istaago ma ahayn wax iska yimiday ma ahayn markab container wado ama maxaan ku raadaay shamiinta iyo maxaan ku raad bariis wada ma ahayn markab casri ah technology aad iyo aad u sareeya qiimihiisa aanan la soo koobi karin waaye waxa la socdo khubaro dadkii ugu maskaxda fiicnaa ugu aqoonta badnaa meeshaas marka la yiraahdo ee dalka Turkiga uu lahaa ayaa la socdo waxa la socdo maraakiib aad iyo aad u qiimo badan oo qaali ah oo maxaan ku raad ciidamada badda ee Turkiga ay leeyihiin oo sida heshiiska ku cadeeyay qayb ka ah marka waxa dareemaysaa mar kale Soomaali in dib loo soo mililacay waxaana rabaa dadka Soomaalida inaan u sheego
waayahan dambe oo dhan saddexdii usbuuc oo markabkan soo socday iyo usbuucyadii ka horreeyey oo heshiiska wixii ka dambeeyey soomaaliya danayn badan in la soo wada aadayay su'aalo badan maxaan qaban karnaa maxaan idinla qabsan karnaa maxaa haysaanoo fursado ahoon maxaan ku rahday ka wada faa'idi karnaa su'aalahaasoo dhamme in hadda muxuu ahay nala weydiinayo waxay daliil u tahay in mar kale adduunyadii ay dib noogu soo jeesatay oo ayna soo eegayso waxaan rajaynayaa dadka soomaaliyeedna aan ka rabaa in aanaan beerdaraynin fursadahaasi sida keliya ee ugu habboon shabaab nagama hor istaagi karo cadow kaloo ajnabi a nagama hor istaagi karo hal shay bas ayaan u baahannahay inaan la nimaado waa maxay dawlad wanaag iyo dawlad rasmi ah oo dalka ka hana qaado oo soomaalidu ay heshiis ku tahay oo ay isla wadato oo ay maxaan ku rahdaa darfaha xajarul aswadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaan ku rahdaa iyadoo laysku haysto uu yidhi qabta marada darfaha inay dadka soomaaliyeed ka wada qabtaan dawladnimada oo aan dawladnimadeenna xoojinno waaye haddaanan dawlad xoog la haysanin annaan helin oo sharciyad xoog la leh oo dadka soomaaliyeed raalli ka yihiin oo dadka soomaaliyeed is-aqbaleen isu dulqaateen ee hore u socdaan haddaanan la imaanin ma ka faa'iidayno fursadaha ay caalamka uuna siinayo oo middan walaalaheen turkiya ayna siiyeen ay uga hormarto sidaas daraaddeed waxaan rabaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan ku booriyo waa fiicannahay dalkanagu waa fiican yahay khayraad badanaan haysannaa wanaag badanaan leennahay meesha dalkeenna uu ku yaallaa muhiim ah walaalo fiican oo na garab istaagaya iyo saaxiibbo fiican ayaan caalamka ku leennahay soomaaliyey annagu aan iska kacno annagaa isku fadhinno annagu aan iska kacno adduunyada siday u nooshahay aan u noolaanno adduunyadu sida ay dawlad u leedahay aan u yeelanno ma ahin mana noqonayno dalkii ugu horreeyey ee batrool shidaal soo saarto ama yeesho ma noqonayno waa nalooga horreeyey qarniyaalaa nalooga horreeyey khibrad badanaa adduunku leeh waa aragnaa dadka batroolka soo saaray ee ka faa'iiday siday uga faa'iideen waa aragnaa kuwa ka faa'idi waayey ee inta boob ugu jeestay isdhacay ee isku dilay lacagtii shidaalka ka timid ee isku dulleeyey ee maxaan ku raha dadkooda ku laayay dhiiggooda ku daadiyeyna waa aragnaa labadaba caalamkay joogaan midda aan dooranaynaahi waa khiyaar annaga aan leennahay annagayna jirtaa inaan batroolkeenna horumarka wanaagga sharafta iyo karaamada iyo haybadda ummadda waddan casri ah nolol casri ah dad maxaan ku raha qudrad leh inaan ku maal gashanno wixii aan ka helno khayraadkeenna iyo inaan xabado iyo madaafiicna looga iibsado oo aan annaga isku laayno lacagtuna ninkii xabadaha naga iibiyey aado labadaas waddaa horteenna ka muuqata waa inaan qaadnaa midda saxda ah oo ah khayrka ilaahayna siiyey intaan ilaahay uga mahad celinno inaan ummaddeennana waxa ay mudan yihiin iyo nolosha ay mudan yihiin iyo haybadda iyo karaamada ay mudan yihiin inaan ku siino ay ku helaan waayo waddada saxdaa inaan marno ilaahay hadda waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u mahad celiyo bogaadiyo meesha ay mashruucan iyo heshiiskan ay ka istaageenba inaan ku bogaadiyaan rabaa si gaar ah fursaddaa waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto u mahad celiyo xukuumadda dan qaran iyo baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ee heshiiskaas si wada jir ah oo aan ka hor imaad lahayn u ansixiyey fahmay arkay dareemay maslaxadda ku jirta ee si wada jir ah u ansixiyey ee u aqbalay aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa wixii saxda ahayood garateen waddadii saxda ahayood marteen waayo wax kastana waa intaasoo loola sii dhowaadaayo sida aan heshiisku u ansixinay sida aan arrinda u soo dhoweynay sida wiilashannadii marmarka qaarkood xataa maxaan ku yidhahdaa social mediaha waxyaabaha aan habboonayn ka day jiray ay ugu midoobeen dalkii inuu maxaanku idhahdaa waa cusub u baryey hore oo u sii socdo ay maxuu ah u taagan yihiin social mediaha dhexdiisa ayadaasna waa calaamad kale oo tilmaamaysa soomaaliyey walaalayaal maanta maalin aan ka fursad fiicannahay nama soo marin maalmo kale oo fursado fiicannana way noo soo socdaan dad iskama yimaadaan fursaduhu hadday yimaadaanna iskama qurxoonaadaan fursadda waa la dhaliyaa tii ilaahay ku siiye mooyaane
markay dhalatana waa laga faa'iidaa waa laga shaqeeyaa waa la xaqiijiyaa in ay maxaan ku yidhahdaa maslaxad tahay intaas ayaan joognaa aad iyo aad ayay muxuu ahay maanta maalin wacan u tahay hadalkii ahaa maalmihii wacanaa way soo socdaan bilowgiisiyaan joognaa kuwii aad u waaweynaana way soo socdaan weli haddii alla yidhaah waxaan rabaa mar kale inaan u mahad celiyo dadka iyo dowladda iyo hoggaanka dalka Turkiya ee noo soo istaagay nala soo istaagay maanta meesha aan taaganahay ee dib u soo kabashada iyo dib u soo curashada iyo dib u soo istaagidda aan u soo istaagnay nala soo istaagay ee garabkanaga muxuu ahay taagan aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa si khaas ah waxaan rabaa anoo magaca ummadda Soomaaliyeed ku hadlayo inaan u mahad celiyo madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan oo runtii dhowr iyo 10 sano la soo dhaafayba muujiyay in ay ummadda Soomaaliyeed inay guulaysato una ku garab siiyo inay guulaysato noo muujiyay abaalgudka iyo abaalmarinta iyo abaalgudka ugu fiican ee madaxweynaha iyo shacabka reer Turkiya aan u abaalgudi karno waxay tahay waxa ay nala jecel yihiin oo aan yeelno ammaanay nala jecel yihiin amnigay naga kaalmeeyeen ciidamay nala dhiseen qalabayna siiyeen ammaankii dalka inaan ku soo celino waa abaalgudka ugu fiican oo ugu abaalgudi karno dhaqaalaheena inuu kobco oo kor u kacno oo dhaqaale yeelano oo aan adduunyada la baratanno ayay rabaan ay nagu garab istaageen inaan xaqiijino oo aan meeshaas ka dhabayno ayaduna waa abaalgudka ugu fiican oo aan maxaan ku yiraahdaa aan u abaalgudi karno maanta Soomaaliya wax kale oo weyn oo Turkiya u tari karta malaha laakiin ninkii muxuu yiri maxay ahayd si aan kugu abaalgudo ma shan geedaan ka sheegaa mase annagu hadda marka meel kastoo istaagno Turkiya inaan u mahad celino oo aan maxaan ku yiraahdaa abaalkeeda sheegno waaye sida kaliya ugu mahad celi karno waana sheegaynaa ummadda Soomaaliyeedna waa u sheegaynaa meel kastoo ay joogaan mar kale wasiir ku xigeenada golaha wasiirada ka tirsan xildhibaanada maxaan ku yiraahdaa khubarada iyo maxaan ku yiraahdaa dadka miidiyaha Turkiya ka socda ee waxa meeshan ka dhacay caalamka iyo Turkiyaba inay gaarsiiyaan u yimiday waa mahadsan yihiin aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh